Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaw Microsoft Word. Casharkan waxaan ku baran doonaa qaabka loo abuuro documenti iyo qaabka loo safgareysto documenti. Marka aad rabtid inaad documenti abuurtid, waxaad sameynaysaa meel banaan shaashadaada tag, right click ku dheh, new ka dooro. Waxaad kasii dooranaysaa Microsoft Word documenti. Hadda documenti cusub ayaan abuuray. Sidaas magaca wuxuu wataa magacii asalka ah, originalka magaca ayuu wataa. Waa ka bedeli karaa. Waxaa dhihi karaa documenti 1 mujeda ama koowaad si aan uga duwan u bedelno. Maxaa yeelay magaca defaultiga mararka qaar wuxuu qaataa documenti 1 ayuu qaataa. Koowaad ayaa ka dhiganaa si aan u bedelno. Hadda documentiga waxaan abuuray documentiga koowaad ayaan abuuray. Ma fahanti? Waa double click ku dheh. Waa ii soo kacay. Hadda waxaa ku jira documentiga koowaad magac ayaa u baxsaday. Waxaan rabaa ku qoraa waa documentiga koowaad. Mujeda? Hadda maxaa abuuray? Documenti ayaa abuurtay. Waa gartay. Markii aan rabo inaan documenti cusub abuuro, hadda qoraalka markii aad ku qortid mar walba oo qoraal aad ku dartid waxa u baahan tahay inaad save gareyso. Inaad save gareysto waa qasab. Haddii waa xira aad aadid oo close aadid, mar la arko wuxuu ku weydiin doonaa muxuu save gareeyaa ama adiga ayaa save gareysan karta. Hadda bal aan fiirino inaad si kadiisa u xirna aan isku dayno. Marka aad close aadid wuxuu ku dhahay do you want to save changes you made to documenti 1 koowaad. Documentiga koowaad isbedelka aad ku sameysay ma rabtaa in lagu save gareeyo? Yes aad save aad ama don't save. Don't save haddii aad dhaho qoraalkan dhan ma save gareysmaayo. Maxaa yeelay documentiga faaruq ayuu ahay waxa ku qoray dhammaan wuu ka saari doonaa. Laakiin yes markii aad aadid wuu save gareynayaa. Yes aan dhaho. Hadda waa save gareey. Aan fiiriyo marka documentiga hadda markii kowga aan galayay wuxuu ahay cad ayuu ahay, nadiif ayuu ahay, waxba kuma qorneen. Bal hadda aan fiirino qoraalkii ma iigu jira? Yes. Hadda maxay ugu jiro? Waa qoraalkii aan ku save gareeyay, waa documentiga koowaad. Mujeda? Okay. Bal aan wax kale ku qoro. Waxaan ku baranaynaa isticmaalka MS Word. Bes hadda qoraal ku darto mogtaa? Qoraalkan aan ku daray aan qaab kale loo save gareeyaa rabaa inaan ku tuso. Hadda maxay si kadiisa u xirnay markii aan xiri maagno ayuu wuxuuna weydiinayay inaan save gareysanayno iyo in kale. balse markii aad san u qoraytid si toos ah markii aad rabtid inaad u save gareysatid file ayaa ka tagaysaa. waxaa kasii dooranaysaa save. hadda wuu ii save gareeyay. hadda waa ii save gareysay documentiga wuxuu ku jira dhammaan waa save gareysan. haddii aan isku dayo inaan xiro ima weydiin doono muku save gareeyaa mise. maxaa yeelay wuxuu ku jira dhammaan meesha mar hore ayaan save gareystay. si automatic ayuu u xiri doonaa. bal aan aragno close. hadda ma ii weydiiyey save or don't save? ima weydiin. maxaa yeelay hore u save gareystay. bal aan furno marka documentigan aan ku laabano. waa kan qoraalkii waa iigu qoran yahay. okay waxaa jirta marka shortcut la isticmaalo. mar walba meeshaan aad save dooro xoogaa inay kugu dheeraataa laga yaabaa. ma fahan? waxaa sameyn kartaa mar allaala markii aad wax qortid control s aad control s. controlka waxaa ka arki kartaa keyboardkaaga markii aad fiirisid control ctrl badhanka ku qoran tahay taabo s la taabo adoo haysid s control s waay. hadda haddii taabto meeshaan fiiriyaa meeshaan wuxuu ku tusi doonaa processka saving control s aa dhaha. mujeedaa? control s markii aad inta waxaa kusoo boodi doona program yar oo itusinaya in la save gareeyo boobsiise. control s ayaa fudud marka mar la arko oo documenti aad qoraysid control s iska dheh wuu ku save gareysmi doonaa insha allahu tacaala. okay documenti hadda waan abuurnay waana save gareyn. markii aad rabtid marka documenti cusub inaad abuurtid ma banaanka ayaa tegaysaa mar walba shaashada new kasoo dhehe? waa maya. meeshaan waa ka dooran kartaa file ayaa furaysaa. waxaa kasii dooran kartaa new. habka labaad ee documenti loo abuuro waayo. new ayaa dhehaysaa. new markii aad dhahdid balaanka documenti ayuu ku weydiin doonaa. ma waxaa rabtaa documenti balaanki nadiif ah, documenti aan waxba ku qornayn. kuwaan aa ujeed waxa waaye samples waaye. haddii aad furtid waa documenti horey wordka loo diyaariyey oo templates la dhaho. templates waxbaa ka beddelay waxbaa ku dadare. laakiin markii aad rabtid in adiga mid nadiif oo cusub oo bilow inaad abuurtid balaanka ayaa dooranaysaa
kadib qaybtan create ayaa ka dooranaysaa mid nadiif oo cad iyo abuur hadda wuu abuuray muxuu qaatay magacii defaultiga ayuu qaatay magacii defaultiga ayuu qaatay oo ah documenti 1 okay waa fahantaa u maleynaa waxaa rabtaa ku qorqorane control s maxaa waaye ii save garay control s markii aad dhahdid wuxuu ku weydiin doonaa documentigaaga meesha aad rabtid in lagu save garay annaga kii hore aan abuurnay desktopka ayaa ku save garaynay oo si toos ayaa u tagnay desktopka laakiin markii aad documentiga dhexdiisa aad ka abuuraysid file waxa uu ku weydiin doonaa meesha aad rabtid inaad dhigtid filekaas ama aad ku save garaysatid annaga hadda waxaan dooran doonaa meeshaan desktop mujeda desktop iyo door documentiga hore meesha aan ku save gareeyay igey documentiga hore waa kaas desktopka u yeelaa mujeda balkanna waxaan ka dhigi doonaa documentiga labaad ina desktopka ayaa ku save gareeyay waxaan u baxsaday documentiga labaad save and double meeshaan iska xaqiijiyaa mararka qaar meesha aad ku save garaysa haddii aadan ka warheenin waa ku wareereysaa positionka aad ku save garaysanaysa waa desktop ii dooran oo meeshaan aad ka arki karo desktop ku jira shaashadii waaye meeshaan magaca u baxsada save ii dheh hadda muxuu qaatay magacii documenti 1 waa ka bedelay maxaa u baxshay documentiga labaad iga soo xir marka kanne iga soo xir hadda maxaa documentiga koobaad maxaa ku xiga waxaa ku xiga documentiga labaad waana documentiga labaad oo aan aniga soo abuuray waa maasan tahay waxaan filayaa inaad fahantay qaabka documentiga loo abuuro loona save garaysto documenti cusub qaabka loo sameysto loona save garaysto waa maasan tahay inta casharka xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.